قلوبتنا هيسوسوا ما انتنا هلك فردو قري سومال لا دلك إلهي قلوبتنا هيسوسوا إلهي تبتي إلهي تبتي توسل وهي هذا التاي صليتو waxaynu ku kala tagnay inaynu saaka oo jimca aday maana jeclay inaynu jimce maana jeclay duruufta taagan iyo xaaladda aynu u siray ee isugu nima culayskeeda keenay haddii waxaan ku daray haddii aanu shirgudoonka yagu showray rogrogley xaaladda maanta tahay rogrogley maxaa dana rogrogley badbaadada iyo xasiloonida qaranka tixgelinay heshiiskii qodobadii heshiisiinta ee adduunka caalamku soo jeeda heshiiskii lixda ahaa qodobadii lixda ahaa ee caalamku u soo jeediyey saddexda murashax ee saddexda murashax bay dee ku soo adres kareen tixgelin haddii aanu tixgelinay buuqa iyo xaaladaha maanta waxay noogu ekaatay oo tale aanu idinku soo jeedin in go-aanka maanta inaga soo baxay inuu ku salaysnaado kuwa inuu ku salaysnaado ogolaanshihii labada xisbi shalay inoo sheegeenoo mucaaradka madaxweynuhuna sheegay ku dhaqankooda inuu go-aankeenu ku salaysnaado go-aankeenu maanta baanu idiin soo jeedin oo aanu u aragno inay tahay danta qaranka iyo dadka wuxuu salaaman yahay meesha rag isugu yimaada ma xaajo lagu hayanaa isku dhacdhac iyo hadallo iyo wax walba way yimaadaan laakiin natiijada khaatumada unbaa laga raaca khaatumada ilaahu haynaga xumayna ilaahu khaatumada haynaga xumayna sidaa uu sheegay gudoomiyuhu annagu maanu seexan malaa'igtu waa iska seexateen sababtaanu ka seexan weynay waxa weeye qarankan iyo dalkan iyo dadkan sidaynu dejinaa sideebaa u dana sideebaynu guurti baynu nahay aan inaga marnaba aanay inooga imanin wax dalkan iyo dadkan iyo qarankan waxyeela aanay inooga imanin wixii aynu wadnay ee aynu ku buuqaynay ee aynu isku haaraanay ee aynuna dawlad la-aan yaynaan ku dhicin unbay ahayde wax taasoo ninba si uun dee uu arkayay marka waxaanu sidaa guddoomiyuhu sheegaya isla gaadhnay inaynaan keenin wax ka baxsan wixii caalamku inagula taliyu inoo soo jeediyey saddexda xisbina ay oggolaadeen inaynaan inagu aynaan haddii aan la yidhaha bawjeexin oo aynaan wax kala la iman oo aynu ku fadhiisino kororsiimadeennu ay ku fadhido aynu kordhinaynaa ee ujeeddadeedu ay tahay inaynay dawlad la-aanay inagu dhicin ila ujeeddadeennu waa intaase inayn ku fadhiisino wixii ay haddii aan la yidhaahdo ay oggolaadeen caalamkuna inoo soo jeediyey ayaanu u aragnay dantii caynkaasaanu u aragnay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay idankiisa horta dadku inaa fahamtaan oo si wanaagsan u fahamtaan buuqa iyo haddii alla wax iska horkeenkuna waxba ma tago waxaanu is leenahay annagu kolkaanu rogrognay waxba maydaan dhaafin
waxaanu isleena waxa maydaan dhaafin waayo wixii lagu kala wada raali yahay baa ayaa dalkan wuxu ah sida waxa maydaan dhaafin maalinle kolka ayna raalina ahaataan waxaanu idiin akhriyeynaa oo aan idiin akhriyeynaa moraalka sida aanu yani wuxu soo dhignay ayaanu idiin akhriyeynaa waa mahadsantahay anigu halkaa waxaan siiqadii ay u qormi lahayd iyo sidii aan u soo dhignay un baan halka ka akhriyaya asbaabaha aynu cuskanayno xaaladda tan iyo go-aankan aynu gaarayno iyada oo aan la ogeyn ama la garanaynin dubisixidda waktiga ay qaadanayso ama inta ay qaadanayso dalka oo aan loo baahnayn inuu ku dhaco dowlad la-aan ama vacuum isla markaana tixgelinayna tala soo jeedintii beesha caalamka sidoo kalena aragnay aqbalaadii golaha xukuumadda iyo xisbiyada qaranka sidaasi darteedna muddo kordhinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay ka bilaabmaysaa 29 bisha 10aad 2009 ilaa bil kadib maalinta ay qabsoonto doorashada madaxtooyada siiqada عبد الله سويدتها إلى العلم ولا فايل كتبين الشاهد العلم وما متطلع ولا الله وعلى انت الدورشو اي دع كل عدو بيلك بعد ما مدحوينونا حيلك وريتيني انت ساكن لك انت اوبل هذا الثاني سيدي يطلبات الحجمات سيدي يطلبات يا سيدي الربي وحاول قراري يا خيرين ما تشيران بين كاموسادنا ما تشتو انا ما عضيني وعفوا سحيان